magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxaanu si kadisa ula kulanay musharax madaxweynaha Puntland Sultan Cabdicasiis Maxamuud Afguduud oo kamid ah musharaxiinta tartami doona doorashadan soo socota ee 2024 musharax soo dhawow magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxa ka furmaya shirweyne ay isugu imaanayaan mucaaradka Puntland taariikhdu markay tahay 10 bishan bal shirkaasi miyaad ka qayb galaysaa qorshahaagu muxuu yahay بسم الله والحمد لله اللهم إنا نسألك لما تحب وترضى طبعا مركوه الرئيس مرشحين تا مدحوينها بونتلاند ترتمية والمغلي ونسوق على مركزي إن توانك بيشن يكشي دوران مقالة جروه ما دام يكشي دوران مقالة جروه طبعا معارض هي محافظ إذا كنت معارض وحد تقنين بانونا يقولين حبناها كانديت هو كان كبنتلاند إنه يترتمى محافظ كان وحد تقنان كان كترد هذا هي يتيم كيسر سعيد عبد الله ومدحونها بنتلاند وحلا يمرك محافظ معارض لبضبا عنو وانو شرحنا إنه كان كوقفته هاي لبضبا دلك إليهين labaduba waxay u taagan yihiin dhismaha dalka maaha mucaaradku Puntland inay u taagan yihiin duminta Puntland oo laga sugayo inay Puntland dumiyaan maaha muxaafidku inay yihiin kaligood dal dhisayaal oo ay kaligood wax dhisayaan laakiin mucaaradi muxaafid labaduba waxa uu taana sidii dalkooda u dhisan lahaayeen anigu markaa waxaan u tartamayaa hoggaanka labada dhinacba maaha inaan hal qolo u tartamayo waxaan doonayaa inaan ku soo baxo hoggaanka muxaafidka iyo mucaaradka Puntland mana jiraan xisbiyo ilaa hadda ka dhismay Puntland oo la oran karo xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafidka ee talada haya labadaas midna ma jirto sida awgeed anigu labadaba waan u sharaxnahay shirka ma ka qayb galaysaa mise kama qayb gali doonto dabcan waan isleeyahay inaan khadka SKB-ga kaga qayb galo wixii talayo tusaale ah sida ay la muuqato Puntland iyo isbedelkeeda goormaad ku noqonaysaa waddanka dabcan waa ku noqonayaa waxaana ka horeeya in Oktoobar dhammaadkeeda ay la kala diro baarlamaanka Puntland kadibna la bilaabo odayaasha dhaqanku inay soo xulaan xubnihii baarlamaanka oo la xilxilanka anigu sidaasaan u arkaa dabcan idinka ka suxufiin ahaana waa idinla muuqataa inay sidaas tahay marka waan tegi doonaa waxaana bilaabi doonaa wadahayga doorashada laakiin kama bilaabi doono in danyarta sida murashaxiinta reer Puntland ay caadaysteen ama dhaqanka u ah in nin kasta u imaanaya uu shilimo bixiyo yiraahdo hal lay soo saaro dad dhiban hooyooyin aan biilkii ubadkooda bahaynin bacadka lay soo taago maalintii oo dhan ay u taagan yihiin hadhowna ay ka tagaan isagoo ka warqabin iyagoo dhiban ay guryahooda dib ugu laabtaan anigu taa ma samayn doono badbedelkeeda waxaan samayn doonaa marka aan tago hooyooyinkaas aan ku sheegayo dhiban dhalinyaradaas baagamuudadu hayso inaan cid walba ugu tegi doono goobahooda oo aan ku gaarsiin doono wixii qoraxda igu taagnaan lahaayeen inaan guryahoodii ku gaarsiin doono iyo xaafadahooda haddii alla idmo iyagoo aniga waqti badan ii taagnaan bacadka halkii ay wax ku qabsan lahaayeen ay wada leeyihiin saacadaha ay bannaanka taagan yihiin marka beddelkeeda anigu talabadaasaan qaadi doonaa mana aha taa macnaheedu inaanan lahayn taageero shacabi waxaan isku tirinayaa hoggaanka ugu shacbiyadda badan Puntland inaan ahay xilligan waa gartay ugu dambeyn fariinta aad la wadaagayso siyaasiyiinta iyo dhammaan shacabweynaha Puntland maxay tahay dhammaantood waxaan u dirayaa in laga helo uturaalanimo weliba madaxweynaha Puntland isagoo hadda talada haya waxaan leeyahay ma muuqato xilligan doorashada sidaad wax u doonayso marka tanaasul inuu ka sameeyo badan ogolaado aqbalo in 66 lagu tartamo Oktoobarna la kala diro doorashadii aanu soo wadnay nidaamkii xisbiyada badan aanu soo wadnay ee one man one vote ka anigu waxaan ahay xubnaha ugu horeeya oo loo tirinayo sidaas oo ay tahay waxaan leeyahay halkaan ku hakino haddii aan ku guulaysto hoggaankaana sii wadi doono dhammaystiri doono haddii murashax kale iga guulaystana isagaanu ku garab istaagi doonaa inuu dhammaystiro laakiin boqolkiiba boqol
hogaamiyaha Puntland inuu aniga noqon doono ayay u badan tahay sida shacabka reer Puntland qabaan aniguna aan aaminsanahay aad baa mahadsantahay